waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu calaamasaaro Suldaan Maxamed Jaamac oo ka mid noqday bahda salaadinta gobolka Togdheer. Calaamasaarka Suldaan Maxamed Jaamac oo ka dhacay hotel Golis ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qaybgalay salaadiin, aqoon-yahano, dhalinyaro iyo qaar ka mid ah cuqaasha iyo beesha calaamasaartay oo halkaasi hadal ka soo jeediyay. waxaana ka mid ah hadaladoodii dadweynaha ka soo qaybgalay iyo beesha calaamasaartayba aad iyo aad baan ayaan u hambalyeeyay. inta martaan tadudbo Cabdisalaan Suldaan Cabdisalaan waxa uu yaala arrin weyn baa maanta xil weyn baa la saaray beeshiisuna xil weyn baa yana saaran labada xil baa jira cadaaladda reerta tu dhaqaatu wada reertana xil baa saaran waxa jira suldaan inta la calaamasaaro marta calaamasaartii dhamaado leeyahay calaamasaarna ista soco orod shaqada shaqadii waa taxideen shaqa maanta uu shaqeeyo ma jiro waxa weeyaan waxa la idinta doonayaa adimadu tu socon lahaa baa la idinta rabaa aad iyo aad baad sharaf baad u leedihiin saaxadii salaadiinta soo dasheen anigu waa weydiiyay halka dibadda weydiiyay waxa uu reertu suldaan hore ma laha maya baa leeyahay haddii la yiraahdo suldaan hore uu lahaa anigu ma imaadeen salaan kadib waxaan u hambalyanayaa suldaanka guud ee beesha Gumbuur Suldaan Cabdisalaan Maxamed Xaaji Jaamac Dubad kadib suldaanka waxaan kula talinayaa si sinaan iyo cadaalad iyo midnimo ku jirto inuu ku maamulo beesha iyo beelweynta Habar Yunisba suldaanka waxaan kula talinayaa in arrimihiisa inta badan uu waafajiyo shariicada islaamka ee xadana ka dheeraado waan soo dhaweynayaa suldaanka suldaan xil weyn baad qaaday beel baad xil u qaaday waan hubaa inaad ka soo baxaysa xilka horena waan ogaa imikana waan oglahay calaamasaarkaagana insha Allah tacaala sanadkiisa bashbashiya barwaaqaha la inagu gaarsiiyo Suldaan Cabdisalaan Maxamed Jaamac Dubad xafladda calaamasaarkiisa oo ka dhacaysa magaalada Burco waxaan ku leeyahay hambaliyo xilka aad qaaday Ilaahay ku fudaydiyo baan leenahay salaadiinta Suldaan Cabdisalaan oo suldaan daayar oo suldaan wax qabadkiisa aan ognahay mucaafid baad yeelanaysa dulqaadkeeda la suldaan marka dulqaadkeeda la qorana anaguna ka dhalinyaraha oo kala taaganahay waana kula shaqeynaa waana ku duceynaa Ilaahay xilka qaata ku wasro marka xigana waanu duceynayo waxaan leeyahay xilka lagu idmaday ee beelweynta Gumbuur ha kugu asroban leeyahay Ilaahayna ku fudayo suldaanka waynu la shaqeynaa waynu garab taagnaanaa odaydana mid baan leeyahay suldaanka waxaan leeyahay hareeraha ka taagnaada talada uu kula soo noqdo iyo ku tashanay labadaba la socda ugu dambeyntii waxa halka qaatay Suldaan Maxamed Jaamac isagoo mahadnaqay dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxaana ka mid ah hadaladiisii inta isugu timay igu soo boqortay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beelweynta Gumbuur ee ii garatay inay suldaanka ii doorato maanta ee ugu boqorto gobolka Togdheer aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ballan qaadayaa inaan Gumbuur ugu shaqeyn doono daacad waxaan ballan qaadayaa inaan Gumbuur sinaan ku wadi doono waxaan ballan qaadayaa wixii Gumbuur ka maqan inaan baadi doono waan la shaqeynayaa dawladda gacmo furan baan ku salaamayaa qalbi furan baan ku salaamayaa waxaan leeyahay saacadii siyaasaddan soo galnay halay soo dhaweeyo waxaan leeyahay salaadiinta aan ka codsanayaa inay soo dhaweeyaan waxaan noqon doonaa nin talada qaata waxaan noqon doonaa insha Allah inaan reerka ka dheerayn nin talada reerka ku socda ayaan noqon doonaa insha Allah tacaala waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.